bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin salaamay dhammaan walaalaha qaaliga ah qiimaha badan meel kasta joogtaan iyo waqti kasta idin tahay waxaan rajeynayaa inaad farxad iyo caafimaad qabtaan ilaahay idin siyaadiyo inta xanuunsanaysa allah caafiyo inta caafimaad qabta allah u siyaadiyo maanta waxaan inoo wadaa English cake ama keega lagu sameeyo fruitka maasha allah markii aan sameysanay sidaan quruxda badan ayuu inoogu soo baxay waa u jeedaan jileec maasha allah fruitka ayaa ku jiro waxaan ku darsanay maxi fruit la qalajiyay ama tutti fruit sida u taqaanidba waa fruit isku dardarsan oo la qalajiyo waaye maasha allah caruurta aad ay u jecel yihiin maasha allah cake aad u macaan soft ah fruitka lagu sameynayo kala iska arag isla socod wanaagsan sida u sameynayna iyo waxyaabaha aan ka sameynayno aada u mahadsantihiin dhammaantiinba sida quruxda badan ay igu xiran tihiin commentiyadiina quruxda badan waa idinkaga mahadcelinayaa jasaakumullahu khayran asxaabta cusub ee igu soo biirtay soo dhawaada channelka waa channelkiina hadduu channelka subscribe ku aheena waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe noo saartid gamaleelkana on ka dhigatid sida ula socotid video walba soo gelin insha allah keegan waxaan ka sameysanaynaa insha allah ugu horeyntii inta aana keega bilaabin waxaan batarka marinaya insha allah weelkii keega haddii aad keega sameynaysid first waa inaad ka bilowdaa weelka oo aa marisaa batarka sidaas u marinaya haddana burka ayaan ku shubayaa oo haddana burka waan ka jafi doonaa insha allah burka uma dhaafayo waan ku dhastikareynaa oo keliya waana ka gidinayaa keega kaagama dhegaayo keeg golden oo qurux badan ah ayaana kaaga soo baxaya meesha sidaas ayaan burka ugu wareeji doonaa insha allah stepka koobaad waaye haddii aad tahay qof sameynaya keeg waa inaad ka bilowdaa weelka second stepka labaadne wuxuu noqonaya insha allah waxaad siif gareynaysaa burkii ayaad shaqshaqaysaa burka micnaheedu ma ahan inuu kuskuus leh markaa shaqshaqaysid laakiin waa inuu burka uu ku kala baxaa uu fagagax ku noqdaa burka 2 koob ayaa isticmaalaa insha allah 2 koob oo bur ah ayaa isticmaali doonaa insha allah waxaa kaleeto aan ku darsanayaa bakinka iyo burkaba waa siif gareynaa ama waan shaqshaqaya kadibna waan dhiganayaa insha allah waa stepka labaad asagane waxaan ku darsan doonaa bakinka 2 qaando labada qaando oo buuxda ma ahan marka sidan aan ugu shubo sida ayaan ugu tirayaa taas ayay noqonaysaa qaando laakiin qaadada markay buuxdo way ka badan tahay hal qaando oo teaspoon ah marka teaspoon lagu dhahayo ma ahan hal qaando oo buuxdo laakiin waa inaad sidaas afka u marsiisaa insha allah labadii qaando ee bakinka aheeday iyo burka waa isku qasameen ayaan sii dhigtay stepka saddexaad wuxuu noqonayaa waxaan isku insha allah batarkii iyo sokortii 1 koob oo sokor ah iyo 1 koob oo batar ah batarka isticmaalayo sida caadiga ahba waa prestige butter prestige waaye haddii aad isticmaalaysid batar oo unsalty ah cusbo aan lahayn waa ku darsan kartaa cusbo laakiin batarka aniga isticmaalayo prestige ka isticmaalayo cusbo ayuu leeyahay soo ma ku daraayo wax cusbo ah waan isku shiidaya sokorta waan boobsiinaya because sokorta iyo waxaa la rabaa iyo batarkii inay isku milmaan ee soft isku noqdaan markaas ayaa ukuntii ku daraysaa insha allah ukuntana 4 xabo ayaa isticmaalayaa oo ukun hal ayaan ugu soo ridi doonaa aniga oo qasaayo ukunta waan soo jabsanayaa aniga oo qasaayo aan ku sii shubo waan ku sii qasaa insha allah 3 second oo kaleeto ayaan ku sii qasaa insha allah haddana halka kaleeto ukunta ayaa soo jabsanaa haddana waan ku sii qasayaa sidaas ayaan hal ugu wadayaa ilaa 4 xabo ukunta aheeday aan sidaas uga dhameeyo sidaas ugu qasaya insha allah haddana waa kii labaad sidaas ugu qasi doona insha allah anigoo qasaayo ayaa ukuntana ku sii shubaya haddana ku sii qasi doona ilaa 3 second insha allah si ukuntii iyo batarkii iyo sokortii si fiican ay isugu milmaan waa xabadii saddexaad haddana sida ayaa u qasi doona insha allah haddana waa soo jabsanaya xabadii afraad waan ku darayaa markaas ayaan si fiican ilaa 2 daqiiqo camal u qasaya isku qasaya haddana waa ujeedaan inuu isu soo bedelay batarkii iyo sokortii sidii markii hore ahaayeen
maasha Allah كريم inay isku soo bedeleen soo waxaan soo qaadanayaa qaandada batarka wuu fafaneenayaa ama blue band ama prestige waxa isticmaalaysid way fafaneenaa markaa ku qasaysid ukunta geesaha iyo ku dhagayaan waa inaad sidaas geesaha uga soo tirtirtaa oo haysataa qaandada caaga ah sidaas ayaan u qasay insha Allah waa boobsiinayaa kaamirada 2 minutes ayaan soo qasay waxaan ku darsaday koob halfkiisa oo caano ah koob halfkiisa oo caano ah ayaan ku darsaday waxaan ku darsanayaa liin dhanaan ayaan ku darsaday liinta isticmaalay ma ahan liin dhanaanta caadiga ah waa lemon waa liinta waaweynta ah hadaa haysato iyadoo jaala hadaa haysato iyadoo cagaar waa ku darsan kartaa wax yar liin ah waaye dhadhan ayaa siinaysaa waxa kale oo ku darsaday vanilla ayaan ku darsaday marka waan isku qasi doonaa insha Allah burka kiskis ayaa ugu shubaya aniga oo gacanta ku sii qasay miikaha isticmaalaya waana sii qasaya waana ku sii shubaya burka 3 qayb ayaan ka dhiganayaa burka aniga oo qasayo ayaana ku sii shubaya insha Allah sidaas u qasaya burkan waan ku sii shubaya soo markii aad qasaysid waa inaad ka ilaalisaa kuskus inuu ka yeeshto burka marka hadaa markuu wada shubtid kuskus oo ka yeelna waa inaad kiskis ugu kala shubtaa markuu halahan oo smooth ku noqdo inta kala ku shubtaa halihii ugu dambeeyay waaye waa ku qasaya insha Allah sidaas ugu qasaya ilaa cream uu ku noqdo waan ku qasaa insha Allah cabaar kaamiradan boobsiinaya waxaan rabaa inuu cream uu noqdo hadaa rabto mashiinka waa ku qasi kartaa hadaa rabto gacanta waa ku qasi kartaa sidaas ugu qasay insha Allah ilaa waa u jeedaan cream ayuu noqday maasha Allah keegana wuu jilicsan yahay keeg markuu jilicsan waxa ku fahmaysaa marka sidaas miikaha u gelisid sidaas uu isaga daba daadanaya laakiin markuu sidii soor camal uu soo dhahayo meeshaas ugaaliya ka soo socoto kama soo socda keeg waxaan isticmaalayaa tutti fruit waa u jeedin ama mixi fruit dry waa fruit la qalajiyay oo kiwi strawberry orange fruit badan isugu jiro maasha Allah hadii aad u baahan tahay tutti fruit kan waan haya waa igala soo xiriiri kartaa insha Allah commentiga iigu soo qor lambarkaygan kuugu soo qora insha Allah hadii aad u baahan tahay inta lambarkayga heesan waxaan ilaa soo dhawaada maasha Allah caruurta aad u jecel yihiin keegan lagu daraayo tutti fruit ka ama dry fruit ka maasha Allah aad u macaan badan yahay soo dhawaada in leeyahay hadii aad daneynaysid aniga ayaad iga heli kartaa insha Allah waa isku qasaya hal koob ayaan ku daray oo fruitkii ah weelkii diyaar uu ku yahay foornadina waan sii shitay soo foornada waan sii shitay waxa foornada uu ku jiri doona insha Allah 45 daqiiqo ilaa 1 saac uu ku jiraya foornada because keega batar kale iyo kama soo baxa foornada waa inaad ku heesaa waqti dabka u gaabi hoos bislana ka shid kor iyo hoos hada ka shidid asagoo hoos ceeriinka ayuu kor ka bislaana insha Allah sidaas ayaa ugu soo wada shubaya keegi kadibna waxaan ku sisimi doonaa qaandada ilaa geeska gees waxaan rabaa inuu saas ugu sinmo foornada gelina insha Allah 45 daqiiqo ilaa 50 daqiiqo kabacdi markuu keega noo soo bislaaday isku soo laaban doona insha Allah taala waa u jeedaan hoos bisa uga shiday waa u jeeda kori hoos waa kaasa laakiin hoos bis ayaa uga shidaya because wuxuu dabka ku jiri doonaa long time waqtigaas ayuu ku bislaanaya kor iyo hoos soo keeg waa noo soo bislaaday maasha Allah u jeedaan gaduudkaas quruxda badan ayuu inoogu soo baxay kala iska arag waan jarjaraneynaa maasha Allah waa slice waxaan ku sameeyay weelka slice ka lagu sameeyo maasha Allah sidaas u jarjaranayna u jeeda keeg wuu kulul yahay ku dheh kala iska arag
ما شاء الله آذو فتوتي هاي آذو معان بدني هاي لالهيك قاليجا وإذا ما تعلينا يا دمانتينا إن أصحاب تبضن إدهن كيجا نصوب بدي إن شاء الله ونصوب بدينايا وقت يدا أو عريري سكوه أو عن فيديو ذيك صوت دهين وإذا كجرا لجلينا إن شاء الله إن الحمد لله على كل نعمتي وإذا ما تعلينا يا دمانتين بملك استاجوكتان يصير قروح بدنا يجو حيرانتهين وأجيدين كيجاني سيدا سوينو صوب بحي وحيلو كديجا مجالها جذها كلا يعني وبطركي aan ku daray ma sha Allah waa cake nafaqaysan aad u macaan caruurta ee aad u jecel yihiin hadii iskuul aadayaan break uga dhigi kartid isla kaas ugu jaraysa anug walbacdiisa ugu xiraysa halkiisa point caanaha ugu ridaysan ku dhahay ma sha Allah waa quraac iskor saaran ma sha Allah aad idinku mahad celinay dhamaantiinba sida quruxda badan igu xirantiin hadoo channelka subscribe ku ahaan subscribe de like ta noo saar share de assalamu alaykum rahmatullah